weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale in ka badan 30 sanadood Soomaaliya waxaa ka jiray dhibaato iyo burbur baahsan kadib dagaalkii sokeeye ee lagu riday dawladii Maxamed Siyaad Barre 1991 burburkii qaranka waxa xigay dagaaladii qabiilada iyo ururadii dagaal ogayaasha iyo waliba wixii ka dambeeyay ilaa sagaashameeyadii dalku waxa uu maanta tartiib uga soo kabanaya marxaladahaasi oo Soomaalida intooda badan ay u dhabar adeegtay walise waxa jira raadkii dagaaladu ay reebeen boqolaal ayaa guryahoodii ka qaxay macluul ay qabsatay laakiin su'aasha isweydiinta wada mudan waxay tahay Soomaalidu dhibkaasi isku geysatay mis afin kartaa waa dooda su'aasha ee caawa aanu ku eegayno barnaamijka oo ay igala qayb galayaan martida stuudiyaha ila joogta waxa ugu horeeya Cabdiwali Xasan Xaashi oo ah ninka curiyay ololaha Cafis iyo Samiya Farjalla oo ah iyana u ololeysa xuquuqda haweenka iyo dadka maaragtay aan codka lahayn waxaan ku hormarayaa Cabdiwali ololahan maxaad marka hore aad u asaastay ujeedku muxuu ahaa Cafis وما صدق فرحان وجدك عفس وحا وياهي إن سيدا عاد شاكتيبا ودن كان دادك إسسود دليين إنتا أصوصانو وما رأيكتي دقال كي ديرادي إن آن أصمينو وعي قلين برامج كان عفس وحوصلك كوهايا ووعي قلين لقو وعي قلين هاي أمد الصوماليات إن أي إسعفين كران إن أي نبدك وضا شقين كران إن كستو عفس مارت كو مقعابين هاي حدنا أولا جيدك وحي تاي إن دادك مارت لقو وعي قلين نبدا إيو دبوهشي سينتا إيو إسو صون نقشدا way ulajeedka ugu weyn ka dambeeya oo wacyigelinka yaa wacyigelinaya waxa wacyigelinaya culimada waxa wacyigelinaya abwaanada iyo wariyaasha dadka aniga cilmigeeda leh yaa marka yaa la cafinaya yaa se wax cafinaya farxaan waa su'aal wanaagsan horta sidaad og tahay dagaalku markii dagaal sokay intaas dheer ugu dhex yaalo dadku waxay moodaan markii dagaalka dadka ku baabaa oo ku dhinta dhimashada iyo dhulka la kala qabsaday iyo meelaha la kala qabsaday dadku moodaan laakiin dhibaatada wadankeena soo gaartay ugu weyn waxa waaye waa maskaxda marka dadkii waxa la isku dayaa in maskaxdii laga daawo qofka hadduu maskaxdii ka jiran yahay oo dhibaato ka jirta maskaxdii waxa waaye wuxuu u baahan yahay positive in looga hadlo Samiya Farjalla aan soo geliyo Samiya waxaad u doodaaday dadka codka aan lahayn marka Soomaalidu waa tan islaysay صح maxay tahay aragtidaadu runtii waa la islaayay dad baana si gaar ah u tabanaya in dhibaatadu ay si gaar u saameysay xitaa markii la damcay in dagaalka laga baxo oo la keeno nidaam dawladeed nidaamkii dawladeed ba wuxuu noqday wax qabali ku dhisan oo isaga ruuxiisaba dulmi ku salaysan marka waxa kale inta noo yimid dad noo soo gurmanaya oo NGO-yaha ahaadeen ama cid kale ha ahaateen oo ujeedadoodu ay tahay ujeedo wanaagsan oo raba dadka inay wax u qabtaan laakiin se ayaan daro waxa saf u galaya NGO-yadii dad raba dadka baahidooda inay ka sii macaashaan marka hal la iscafiyo diintaaba qabto waa in la iscafiyaa laakiin se maxaan isku cafinaa maxaa gurigayga iyo beertayda intaa haysatid qaninyada iga fuji kadib aan ku cafiye intaadan gelin waxaan jeclahay si toosa magaalada Hargeysa waxa Skype-ka ugu jira Cabdicasiis Maxamed Ciid oo ah nin u ololeeya nabadda oo barnaamijka nagala qayb galaya caawa barnaamijka waad daawanaysaa qaybta hore Cabdicasiis ku soo dhawow adigu maxay kula tahay Soomaalidu maxay isku cafin laadahay waad mahadsantahay Farxaan bismillaahir rahmaanir rahiim cafisku sida horeba loo sheegay waa shay diinteennu ay aad uga hadasho waa shay caafimaad ku soo kordhin kara ummadda waa shay wax far badan daweyn kara oo la kala tabanayo laakiin cafiska waxa ka horeeya dambiga la galay waayo cid la cafinaya waayo cafiskuna wuxuu leeyahay xitaa diinteena conditions buu leeyahay waxa ku xeeran baa jirto ay tahay in la helo cafiska dambi dhaaf marka doonaysid ilaahay ka doonayso ilaahay wuxuu ku leeyahay horta dambigii aad gashay qiro dabadeed qoomame dabadeed ibari dabadeedna ha ku noqonin intaas afarta condition marka la helo ayaa la helayaa cafiska waa ka ilaahay aad ka helayso marka bariyayso ka bini aadanka waxa ku jira inaad qofka bini aadanka dambiga ka gashayna aad weydiisato cafiska aan ku saxo aan waxaan ahay horta Somaliland activist baan ahay nin Soomaaliyeedna waan ahay wixii dulmiye iyo wixii dhibaatana in badan baa runtii ku soo jiro waan ka hadlaa waxaanan ahay dadka daba socda dadkii xasuuqa geystay ee ku nool dunida dacaladooda
waan ogolay in la iscafiyo laakiin wadadii cafiska loo mari lahaa hala maraan leeyahay wadadii cafiska loo mari lahaa waxa weeyaan dambiyo culus baa la galay dadkii ha soo baxaan ha yidhaahdaan waxaasaan u galay hana la cafiyo waa halkaa bogsi baa ka iman karaa waad mahadsantahay cabdicasiis waan kugu soo noqonayaa qadka igu jir waad maqlaysaa cabdicasiis wuxuu leeyahay in la heshiiya ka horeysa horta oo qofkii uu diinta u soo laabto uu yidhahdo qaladkan kaa galay intaan cafisba la gaarin horta farxaan oo sheekadan iskamaanaa bilaabina waxaan isku daynay inaan Soomaalida dhex geyno oo iyagu ka doodaan waxaan qabanay TV debate waxa la yiraahdo raadiya laga hadlay waxa uu sheegay ninkan odaga waa runtiis waxa Cabdicasiis wuxuu sheegay waa runtiis waxa aan ka hadlaynaa waxay tahay dadka individual doonaya qofka walaalkiisa in uu cafiyo ama uu cafis weydiisto yaa waxaan u sameeynaa platformkii waxaan isku daynaa wadankan dhibaato waad u fududaynaysaa waxaan isku daynaa dadkan intaas oo san soo gumaaday oo dhibaato isu geysanay oo wax allaalay waxay ku hadlaanba negative tahay inaan positive ugu bedelno haddaan example yar ku siiyo showgii ugu horreeyay ku qabanay xamar oo dunidoo dhan laga daawaday TV Soomaaliya soo deelisay nima ila soo xiriiro yeerinayo waxaan doonayaa inaan showgaas imaado nin Soomaaliya oo gurigiisa ka haystay 25 sano gurigiisa u celiyo marka dadka noocaas arnaa inay dhex galaan arrinka Saami aan soo galiyay Saami waxa leedahay Soomaalidu haysta gaasha laakiin way kala xoog badnayd haye marka waxa leedahay dadna waa hubaysnaayeen oo hubkii dagaalkii qabowaa oo dhan gacanta u galay dadna waxay ahaayeen dad beeraley ah oo aan hubaysnayn oo culture-kooda culture fadhiya ah sedentary dadka la yiraahdo marka haddii la yiraahdo cafis aniga beertaydii waa haysataa guryahaygii baad haysataa magaalo dhan oo marka la yiraahdo dhulka la wada dhigay iyadoo dhan tii baraabana waa la iskugu hanjabaadaya annagana baraabo dhulkaan dhigaynaa haddii kaleento saan rabno noo yeela marka dawladdii awoodda lahayd oo dadka kala celinaysay dadka kala horeysay meesha awood ma laha maxaa hortaagan markaad is leedahay dawladda waan ognahay awoodeeda iyo inta ay Soomaaliya burbur soo martay laakiin maxaa hortaagan baad is leedahay in Soomaalidu is cafiso waxa is hortaagan horta wax insecurity la yiraahdo meeshan ninbaa wuxuu mushahar u noqday mashruuc ka dhigtay nin kala baahidiisa iyo dhibkiisa marka dawladdeena ma kaafinayso ninkii dhibka geysanaya in guri la siiyo in mushahar la siiyo looma awoodo hadaan ku daro ka xoog hadaan wax yar ku daro wadankaani dadkaani intaasoo isleynay waa dad maskaxda ka burburay qofku markuu maskaxda ka burburana waxa ka lumaya aaminaadii ka lumaysa waxa ka lumaysa isha qofka kale waan soo noqonaya waxaan jeclahay haddii aan tusaale u soo qaadano dalalka Koonfur Afrika oo kale markii la bedelay xukunkii midabta koorka Koonfur Afrika waxa laga dhisay guddi lagu magacaabo guddiga xaqiiqda iyo dib u heshiisiinta waxa guddigaasi loo sameeyay si loo baaro xadgudubyada dhacay oo markaasi xilligii xukunkii midabta koorka ilaa 60kii ilaa 94tii wixii dhacay waxa xadgudubyadaasi ku jiray afduubyo jirdil waxaana guddigaasi ugu dambeyntii ay loo xil saaray in ay dib u eegaan wixii dhibaatooyin dhacay guddiguna waxa ay qabteen oo ay dhageysteen dacwado kala gedisan waxaana loo siiyay awood inay cafis u fidin karaan dambiilayaasha iyo waliba kuwii dambiga qirta waxaan jeclahay marka inaan ku soo laabto bal dhinaca kale iyadana Rwanda marka la eego waxa lagu dilay halkaasi dhowr in ku dhow 1 milyan oo qof waxa sidoo kale la xiray ku dhawaad 120,000 oo qof oo markaasi dhibaato weyn ay ka dhacday marka waxaan jeclahay inaan dib ugu laabto Somaliland waxa khadka uga jira Cabdicasiis aan dib ugu noqonay Cabdicasiis Maxamed Ciid Somaliland way go'day inkastoo la aqoonsan muddadaasi dhibaateena tabanaysa marka sidee la isku cafinaya sidee dhibkii dhacay loo xallin karaa waa su'aal meesha taal runtii waxaan anigu qabaa saddex qolo ayaa dhibta geystay qolo waa dawladdii Soomaaliyeed wadanka burburisay qolna waa jabhadihii qolna waa warlordyadii iyo qolooyinka dambe xagga diimaha inaga soo galay marka la kala qaado arrimaha anigu waxaan focus gareeyaa dawladdii iyadoo dadku miyir qabo oo aynu dawlad nahay kuwii jabhadaha way geysteen dib badan bay geysteen oo u baahan in laga daba tago lafteeda oo wax la saxo laakiin waxay ka soo bilaabantay khaladku dawladdii buu ka soo bilaabmay jabhadaha iyo warlordyada iyo waynu u geli karaa qoladan diimaha kala duwan ee noola timi laakiin aan ku noqonno taa dawladda markaaynu dib ugu noqonno waxaan u malaynayaa Soomaalida waraysi fara badan baa isu seegan anigu waxaan qabaa 250,000 oo qof in Somaliland ay ka dhinteen wax diyaaradi dishay wax madfac la dhacay wax kanaa aniga ku daba jiray 15 sanadood
waxay UN tu xaqiijisay bishii ugu horeysay oo keliya 50,000 ku ma raba inaan soo 50,000 waa bishii u horeysay reportkii UN ta ka soo baxay waxaan soo gelinayaa laakiin cabdiwali baan soo gelinayaa yes intaan horta haye badanaa waxaan ka hadalnaa inta qof oo la kala dilay dhulka la kala qabsaday sidii la isku sameeyay farxaan waxaan u baahannahay xataa haddii la doonayo Soomaali inay isu soo laabato ama ahan Soomaali ka hadli maayo culture ka hadlaya culture-keena waxaa ka buuxa dhaqamo aad u xun oo 500 oo sano soo jiray oo faquuqi ka mid yahay oo dhibaatooyin ka mid yahay qabiilka qayb ma ka yahay dhaqankaas qabiilka waa qabiilkaba macnaha waxaan doonaynaa hadda barnaamijkan cafis wax kale oo ma sameynba qaybta labaad waxaan rabnaa inaan ku soo qaadano oo dadka qabiilkii dib ugu laabano aniga iyo adiga oo wariyaasha ayaa ka doonaya inaan calaamad su'aal ka keeno dhibka qabiilkeena ku dhex jira Saamiya haddaan ka soo qaato for example jibooyinka oo kaleento qabaa'ilo soo duulay iyo dad weligood deganaa jira dadkii weligood deganaa oo jareer weyne loo yaqaano laakiin 9 qabiil u kala qaybsan waxaa dhacday in la yiraahdo jareertii baan dhulka ka nadiifsanaynaa waa ka ciirinaynaa oo aan looba arkin inay dhib tahay dawladii centralka ahna dadkii ma difaaci karto oo awood ay ku difaacda male marka immigration ka muhiim migration muhiim hala soo duula meesha doonaa laga soo galo laakiin dhulka aan wada dagno amaanan isa siino aad baad mahadsantahay Saamiya waqtiga ayaa naga dhamaaday adiga iyo Cabdiwali iyo Cabdicasiis oo snaqadka magaalada Hargeysa uga jira Somaliland waan idin mahad celinayaa inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa waad ku mahadsantiin daawadayaal dhamaantiin waxaan leenahay sida iyo habeen wanaagsan